qolyahan qarxajista maartay iyaga laftoodu baaba'ay la gumeeyey lafta yar ay la gumaysay hooyadood ku wastay dhulkoodii iyo maaragtay wax walba lagu sameeyey laba inaan mid ugu soo haagno istaaqnimo inaan ugu soo haagno iyo inay ummadda Soomaaliyeed ka mid noqdaan sida anaga la noo eriyay in la wada eriyado garxajka saasaan faraya waayo anagu waan ognahay Hargeysa wixii ka dhacay shalay wixii gubay iyo waxa ka dhan barnaamijka la isma qaldi karo qoladan garxajista hoogtay istaaqnimada laga eriyaday baaba'day waxaanu halkan fariin uga direynaa inaanu istaaqnimadii awal baa nagu eriyanayseen nagu baabi'inayseen inaan idigu soo hagaagno iyo inaa ummad Soomaaliyeed oo nala dhalatay oo maaragtay sayada la gumeeyey oo heeray yaro Djibouti iyo Sacad Muuse isku geeyeen inaynu wada ahaano oo inu iska dhicino inaanu waxu idigu imano alif wax male iyo alif wax uu leeyahay baa idinka rabnaa garxajisow hadalkan waan ka baxay waan maasantahay in yar Faisal minute baan ku daraya halka waan yar xoojinaya waan soo qoray anigu waxaan soo qoray colaada halka ma taqaana maanta dadka la soo xasuuqay ee kuwa luqaya iyo kuwa ruqi ka jiraba cidda loo adeegsanaya waa garxajis weey saraakiisha la adeegsanaya iyo daydayga la adeegsanaya intaba waa garxajis weey garxajis waxa leenahay colaadina kama dhaxayso waxaan u baahanahay garxajisow inaan dabinka lagu gelinin ee aad ka durugto oo aanad godob shacabkaaga iyo dadkaaga u soo jeedin saraakiisha ka shaqaynaysa ee loo eegmaday ee hawshaasi dawada xagga dama laga fadhiyo waxaan leenahay war dibiga noqda cidda aad ma taqaanaa saysaan maaha ma taqaanaa dadka galbeedka maaha cid kala saysaan cidda ku soo diraysa ee dhaqaalaha kugu bixinaysa kugu bixinayso Soomaaliland bay meel geynaysaa maaha waxa la rabaa in adiga lagu adeegto marka waxaan leenahay kawaantooba leenahay saraakiisha garxajisa ee hawlahaasi ma taqaan dabada laga soo xagga dama laga fadhiyo cidda ka fadhidana waan garanaynaa waan maasanta Faisal waayahay inta ayaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena dhamaantiina waad mahadsantihiin waxaan idin